maanta haddana badbaadiyo qorqor waa dul istaagaya wax kan cadayn lahayna waa iga reebayn qaraxa ka dhacay buula bardana waa ka tacsiin doonaa asagana xog baan ka siin doonaa aan ku hormaro shakhsigan aan ku hormaraya halkan suudka tolmada qaba ee airportka Addis Ababa live kaga jira wuu hadlay qabiil baa soo takooray qabiil baa cusreeyay jaaliyada Soomaaliya Zambia qabiil baa ku shaqaysta haddii aan ku qabiilka soo tarxiilay mar wuxuu leeyahay dawlad baa tarxiishay qabiil baa la dawladda ku daabnaa waxaad ku shaqeynaya qabiilka uu sheegayna waxa maayay cid kale ma ahay waa reerkii almajeerteeniya ari aan ka dhash xogta ninkan ay siinaya ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Abdullahi Ahmed Yare Guutana la yiraahdaa waa wiil habar gidira oo cayrow ninkaas ganacsada ma ahayn mukhallas buu ahaa dadka soo tahriibiya Zambia fiisa ku keena ka bacdina u sii gudbiya halka ay Suudaan oo tahriibiya buu ahaa kiiska lagu qabtayna kiis masaafuriso bahalkii ahaa oo dad adiyada ku tarxiilay dad ku keenayay oo mukhallasnimo ah ayay dawladdu ku qabatay muddo maxkamad saarnaa sidaas sharci ugu dhacday ka bacdina sidaas la soo tarxiilay ninkaas waa sida xaqiiqda waxa uu yiri ganacsada ahaa beentii weeye inuu Maxamed oo jam waxa la yiraahdo reexsiya oo beertu waraabin jiray heersan iyo weydii beertu waraabin jiray ayuu sheeganaya xilay ganacsada su'aal kale weydiinayay Soomaali inta bilahan tira ka shan habar gidire waa tarxiil wali miyaad aragteen qof abgaala oo laga tarxiilayo meesha la yiraahdo ka cabanaya Zambia ma jirta laga tarxiilay miyaad aragtay qof murursada oo leh waxa laga tarxiilay Zambia miyaad aragtay gaal jacayl la Zambia laga tarxiilay miyaad aragtay xawaalo la Zambia laga tarxiilay kambaniyaasha markii la yiraahdo markii daarad laga soo tago koonfurta la yiraahdo kambaniyaasha ugu badan nimanka askar abgaal murursade xawaale hadii ala ku rooyahay gaal jacayl intaba kambaniyaal ku leeyahay si sharaf leh u shaqaystaan ummadooda kamid yihiin magaca Soomaaliyeedna waa dhowraan magaca Soomaaliyeedna waa dhowraan laakiin ma is weydiisay habar gidir maxaa ku gooni habar gidir maxaa ku gooni anaga hadda anaga cayr maxaa naga dhaxay waxa ay soo tarayeen uga ma jarteen bal ma jarteen ya cayr maxaa ka dhex mari kara maxaa ka dhaxay waa Soomaaliya maxaa ka dhaxay waxba kama dhaxeeyaan jaaliyada ma soo tarxiilin horta ninka xogtiisa ay siiyay ninka magaciisa waa idisiyay waana cayr horaantii sanadkan dad ayay wax soo gasheen mukhallasnimo ku soo gasheen asaga mid ayaa hore la tarxiili jiray midba maxkamad baa inta u socotay ka bacdina maxkamad baa lagu xiray inta waxa sii dheer wuxuu damcay markii maxkamadda lagu furay in jaaliyadu difaacdo oo tiraahdo ninkan mukhallas ma aha oo ay hawaato jaaliyadu waa diiday waxay dhaheen qof tuuga oo mukhallas ah oo sharci darrada ku soo galiyay anagu ma difaaci karno kadib arad isku xabshay habar gidirtii meesha deganayd nacsijiidka iyo goomeystayaasha iyo tubaakada gadi jiday buu u yeertay wuxuu yiri waxaan sameynaynaa jaaliyada sameysanaynaa la yiraahdo jaaliyatul Soomaal la yiraahdo sida midaani ugu awood badan yihiin ma jeerteen ma ka hoos baxayn hawiyo dhan buu u yeeray markii hore hawiyo waxay dhaheen anagu jaaliyadana ka midna abgaal baa ka mid ah murursada ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ayadana xubna kana وانا شايل لا قوسيه ما يجاري مركو هويه كلا كحيسن وانا hornaga tagto iyo tu ku yaalay orad bisku xashay habar giirti baa uriyay jaariyadu habar giir yaasaysan waa laga war helay warqadiina waa laga qaaday wixiina waa laga gubay martaba yaan ka maqal daalay waxa eesha hal jaariyad bay leedahay wayna lahaan doontaa forma af taas waa mid inta markii la yiri oo cagta laga saaray ka bacdi waxa dhacday maxkamadiisa soo dhamaatay in waddanka laga saaraan baalkii dawladda Zambia ayaa tarxiilaysay warqada jadhay oo xataa u jartay warqad u goysay u diday safaaraddu waxay damacday inay ku hagoogato mudday meermeerinaysay kadibna dawladda Zambia baasaboorkiisa bay heshay oo lagu tarxiilay su'aal isweydiin war maxaa loo tarxiili waayay abgaal war maxaa loo tarxiili waayay war maxaa
لو تحيل واي نوك اللي يراهدو عير يعني أورا نوك اللي يراهدو حوالي والمحل لو تحيل واي نوك اللي يراهدو قارجع والهبل قدر محل كوجوني توغني ما يدك كوجوني وسخني ما يدك كوجوني هبل قدر لا أفريقيين أنت كتشوك تماش ما في واحد على سيول maxay tahay anaga ma jeerteen su'aal baan weydiiyay Soomaaliye maxay tahay colaada habar gidir cayr naga dhaxaysa oo naga dhaxayn weeyday abgaal maxay tahay colaada cayr iyo habar gidir naga dhaxaysa ama habar gidir kale naga dhaxaysa ee aan naga dhaxayn mursade maxaan ku kala jecelnaano ninkaasi wasaq dhalay buu ahaa tuug ah haddana wuxuu joogaa sababa ayra boor buu ka qaylinaya midka magareeshka haysta cayr baa wuxuu ku yiri أنا أكون علينا ماشي على شو حداد عليسيد عيرو كل جسمي بعض حداد عليسان كابيراني جحير ناق صباحي ناق أنا أيوبه بقى شوابي أنا أيوبه ناق بقى صباح حداد سامي كسر عليسان سامي ما بحنا توق ما بحنا ما قاعدين صومالي ما بحنا مسلماس ما بحنا هدي على كور ما بحنا نحشي شيء اللوجو ما بحنا وما بحنا كبتر ما بحنا وما بحنا دي على كرويه وما بحنا مت سامبيا ده الصومالية ومجا الصومالي سو ريتشو بانت وين تشوفه قبل كيس أيقون ما نكيرينه مجا أيقون حميد بخيجاله أو مجا أيقونه أو توجنيمو يعني نعتيجيد يشقق حما يدي على كبتلا يو حما هو كشقيني حكيرينه مجا الصومالية يا مجا قبل كيجي ديسه صوته واسكو أجنه موقت إذا ما كان قرنيسه والصومالي ولا موقت marka Soomaaliya Zambia waa rich waxaan rich nima ku dhaqmayna waa ka baxayaan meesha hadda idin sheegay ana hadda idin luqadana waa tii aad fahmi jireen tii caadiga ahayd oo xogta ahaydna waa idin sii halkaas aniga ku soo xiraya hadalkiis dadka kale aan dul istaagayo maanta waxa qaraxyo laba qarax lagu fashiliyay ciidanka galmudug ku fashiliyeen meesha la yiraahdo Luusamareeb mahad salaad mahad kawaanle caadi wala ka urtay marka labada qarax waxa loola socday oo lagu talagalay in ku dhintaan lagu dilo madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor horeyna uga badbaaday mid hore kii hore uga badbaaday waxa uu joogay jiida waxa uu Axmed Cabdikaari Qorqor sheegay in assassination ku dhex jiray argagixisaduna ay ku soo gabadeen dad asaga amniga kala shaqeynayay ama hay'adan isa kamida ama hadii la ku rooyahay dawladda kamida inay hagayeen hadalkii maalinta uu yiri waxa isla markiiba ka jawaabay xildhibaan Axmed Ilyas Axmed oo ah xildhibaanka bedelay mahad salaad kursigii uu ka tagay markuu nabadsigu noqday ninka lagu bedelay adeerkiisa ayuu qoraal u soo dhiibay oo yiri waxa tiraahdaa Axmed Cabdikaari wuu khalkhalay oo hadii la ku rooyo maskixiyan qarxi baa xudhimay waa beentis wuxuu sheegayo isla markiiba hadda ogow Axmed Cabdikaari ma sheegin mahad salaad ay qaxiyeen laakiin wuxuu sheegay qaraxan gacmo kale inay hagayeen buu sheegay ka bacdina ninkaas soo booday oo mahad walaalkii ah oo kursiga ku fadhiya oo xildhibaankiisa oo yiri hadii la ku rooyahay Axmed Cabdikaari waa wax taasna maxay ku cadeynaysaa inay farta iyo meesha bugtayda isoo maanta mar labaad ayay ciidamada galmudug kuwii dawladda federaalka iyo kuwii macaawisleydaha iyo kuwii jiidaha hore ee diyaarkooda al-shabaab wada galay galmudug intuu qaraxaasi soo wada dhaafay oo la soo dhaafiyay ayaa madaxtooyada galmudug fashilis labadii gaariba qarxiyeen rag isku dhigay wili wala isdaba taagan xaalku maanta wuxuu marayaa war ma xasalaado waa ku wax iga har iyo ka harimay hore waxa ogeyd farxaan qaroole meesha lagu dilay waxaad ogeyd ninkii la oran jiray Shaah Macbe waxaad ogeyd qoosha dagaari oo Fahad Yaasin afkiisa faylkiisa oo hayo oo yirmaha salaad baa dilay intaas oo saraakiil haatan ilaa hadda waxa laga helaayo baxsan la waa Axmed Cabdikaari Qorqorna hadee Saleemaan kuma sida markii la habargid riyaado reerka Saleemaan ku reerka ugu siyaasadda badan nin meel dagaal laga heli kara ma Axmed Abdushalay furinta hore joogay oo hawarkaalay wada duulne dawladda federaalka oo aan al-shabaab ku wada duulne markay u cadaatay in asagii la cunayo oo kursigiisa loo socdo ayuu Dhuusamareeb difaac ka xirtay
wuxuu taagan yahay wareega dabaharoy magaalada dhexdeedii dhuusamareeb fadhiya dhuusamareeb fadhiya asna waa ka dabahalay difaac iska soo bax dhuusamareeb hadda mahad salaad iyo qoorqoor is haysanaya dhuusamareeb ka soo galay qaraxa nigta lagu hayo shacab loo aabayeen mayo ninka leeyahay mahad salaad haysanaya war mahad ka dabahar buu hayo warjiidi kaaga imi wareega dabahar nag mahad wuxuu taagan yahay meeshii qooja maray meeshii shaah macba maray meeshii haddii aan ku raaco maray ninkii la oran jiray farxaan qaroo la maray bartii baa maraysaa uu taagan su'aal baa la isweydiiyaa war madaxweynuhu asagoo og shakhsigan inuu al-shabaab yahay shakhsigan laba sugidda u haya inuu al-shabaab yahay asagoo og maxaa ku kalifay waxa ku kalifay anadii sheegay waa simba inuusan iska cayrin karin waxa ku kalifay madaxweynuhu ninkan waa soo wada qaraabteen raggu markay soo wada qaraabtaan jid soo wada maraan soo wada rafaadaan sir badan bay iska hayaan wax badan bay iska ogyihiin nin kastaa ninka kale calooshiisa gacanta kula jira xasan uma sahlana marka inuu mahad salaad cayriyo ama ka hor yimaado uma sahlana sababtoo ah mahad oo mucaarad ku noqday waa madaxweynaha shaatigiisii oo mucaarad ku noqday shaatigiisu wax ka qarsoon baa jira maya taasaan u saamaxayn madaxweynaha marka niman isdhex galay soo wada qalaabtay waxay burburin kale soo burburiyey mishimo badan ka soo wada qayb qaatay ikraan tahliil iyo hooyadeedii aaminadii xildhibaanada ahayd iyo wax badan rag soo burbursaday rag wax badan soo burbursaday inay maanta isfalafalayaan ayagu way ku adagta taasaan kalifaysa inay isu wanaadaan ninkii la oran jiray mahad salaadna waxa u saamaxaysa inta xasan joogo inuu ciduu rabo dili karo ciduu rabo socon karo shaqaalana uu yahay nimanka la argagixisaday Soomaaliya IS inuu shaqaalo yahay taas ku cadaynaysa ciidankii hada dhamaan dagaaladii IS ugu jiray waa fashilmeen ciidamadii farmaajo dhisay ee gorgor lahaa ee haramcad lahaa ee shanta kun ee tiriya lahaa ee hadii la kuroyo commandooyinka ahaa maanta waxba kama noola amisom maanta jilbaha la haystaa farmaajo kii lahaa way amisom iga bax maanta kuwaana amisom jilbaha haystaan ciidan ma haysano macawiis leeydi la cuniyay xagee ka dhacday qaraxyadii baa dhuusamareeb maray oo yaa wada mahad salaad baa wada ciidamada ayaa laayay mahad salaad baa laayay ayar baana dalkan loo qabsanaya mahad salaad baana gacanta wuxuu rabaa u galiyo nimanka uu shaqaalaha u yahay ee IS xaqiiqadu waa taa dhawaana waa maqal doontaan IS oo lagu yiraahdo goboladii Soomaaliya oo qabsatay dib u soo rogaa ee Soomaaliya maxaa ka lifaya ciidankii ugu tirada badnaa waa laayeen hubkii ugu badnaa gacantooda u gaay maanta maalinay ka awood iyo bahalka nooyihiin ma jirto intii IS jirtay maanta maalinay ka mulqawaaweyn ma jirto sababtoo waa aragtay waxay soo bandhigayeen waxa hub gacantooda galay waxay ciidan dileen waa aragtay taas waxaan qarsan kara nafta khiyaali kuma weelin kara moogta naciib kasta oo qaban nimanka nafta khiyaali kuma weelin karo haddana raalli buu oga yahay oo ayaga maan nisa fadhiya ciidan kayma inta la dhex fadhiisay la garab isku soo duub hadda xaalka aan hadda qodobkaas ala taaraxay ninkii la oran jiray Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo mahad salaad baa wuxuu marayaa meesha ugu xumaa wareegaha ka harima hadogow Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xasan sheekh maxamed iyo mahad salaad ba abaalka ugu weyn kula weyn waa ninkii xildhibaanada oo doortay maanta ee hawiye ee galmudug ka soo baxay ninka soo saaray ninka xubinimada siiyay way asagoo u diidi kara oo sida dani iyo ay yeeleen iyo xubinimada yeeleen iyo ninka la yiraahdo lafta gareen ay yeeleen asagoo yeeli kara ninkii mahad salaad xubinta soo siiyay asagoo maanta xubintii lagu dilaya xubintii baa lagu dilaya qodobka ka sariya waxaan ka tacsiinaya ayaga tacsiinaya u diraya qaraxii uu Soomaaliya ka dhacay tacsiinaya dhaliyadii ku waxyeelo ku dhaawacantay waxaan leeyahay halgamayaal baatiin halkina ka haya isdifaac buula barde qarax baa ka dhacay aad u weyn dad shacab ku baabeen ayadana waa ka tacsiinaya waxaan leeyahay xawaale waa qaraxii labaad ee bishan waa ogeeyeen balweyne ka dhacay waa ogeeyeen maantana buula barde sodobayay dhibashada marka shacab aan ugu leeyahay maxaa ka lifaya xasan iyo mahad salaad ku yimaada qarax iyo adigu waa arkaysan intay ku jiraan baa qaraxu ku jira xaqiiqadu waa taa inta xasan iyo mahad salaad ku jiraan ayaa qaraxu ku jira beledweyne nimanka la xawaale waa la dagaaleen al-shabaab say rabaan waa isdifaaceen al-shabaab kabahay ka jareen haddana
نبض يلا نرنبي لح بلاد طب لو كده بيسي دفاع ضد حتين سدد بلاد قال بالدفاع ضد حتين انت عشان لكل كسارة ليه عارف حوالي الغحية ما لكن هذا يا صقلي حسن وابتيو له دولة ده يا شقية بابورتي قرحية بابورت الدولة ده قرحية ساري بابورك الدولة ده أي قرح ساري أصلا كبري يكون ماني أكون قيلا يا أصلا إذا كنت قيلا يا كعيسى حقيقة وقتها مركب ما هذه نكى لباو كلا قباه يا آيس أما ما كانت يا ما الصلاة نكى لباو كلا قباه هذه يا قنطة أدب الإسلام يا